marka hore corruption waxa weeye qof la siiyay awood kaasoo u adeegsada si sharci darro ah marka dunida waxa loo kala saaraa marka qaybo badan oo leeyahay qaybihiisa badan Soomaaliya way ka jiraan for example tusaale waxa jira waxa la dhahayaa grand corruption oo inta badan yaani maxaa la yiraahdaa ka dhaca high level institutionada ama hay'adaha waaweyn ee dawladda ka dhaca waxaan xasuusanaa dawladdii hore dad ka tirsan mas'uuliyiin ka tirsan bankiga dhexe in lagu eeday millions dollar inay kala bixeen in يعني لما قرنا عد إلا هذا تقانم لهن قفك سمي محل عقاب ولا مرسي مركز تاسي عنها هدي سنجرين يعني corruption كصومالي دول الصومالي أشياء إنه لا تجاش منه يعني مسؤول كريس مالك استوحانه لمبرون وجرنا ودمده بالدرستي مركز corruption بدن أو آذو بدن بودن كان كتير هدي نقول لهيد دنكا دقالها هدي نقول لهيد دنكا شقوينكا هدي نقول لهيد دنكا وحوي دولة نمدا runtii corruption ragaadiyay oo wadankan dadkiisii aad u la haray ayna u baahnaan lahaayeen in wax laga qabto oo sharci laga sameeyo baa wadanka ka jira marka waxa maqalnay in la sameeyo sharcigi baarlamaankii la horgeeyay baarlamaanka ay soo celiyeen oo ay dhaheen budget uma hayno so sharciga muhiimka ah ee corruption-ki iyo musuqmaasuqa ka hortagaya hadaan loo haynin budget si wax kale loo sameeyo way adag tahay